marka ugu horeysa waxa la gelayaa dhammaan ciidamada ku sugan halka ee ka tirsan jabhadda la diyaar garoobo heegana la galo waxa la gelayaa dagaal istaba jooga haw malaynina meel kasta oo laga soo galo Hargeysa waa naqana ciidamaduna way ku sugan yihiin hawdkeeda iyo waqooyiga iyo galbeedka iyo bariga gudaheedana way ku nool waxa la yiri maska madaxa laga dilaa haddaan caasimadda la weerarin halka ay ku jiraan ragga baabi'inaya dalka siyaasadiisa qoobada ka dhigay haddaan maska laga dilin qaboobi mayso boogto intaas waa inta markaan ka warramo arrimaha obreshki target buulaha waxa weeye wasiiradii ku sugnaa ceelafweyn uu ka mid ahaa boos horta marka ugu horeysa boos mare maxamed nuux baa dhalay dukaankiisiibu ku aamini waayey mare lahaa ilmaadar baan ayaan darro waxa ah muuse wuxuu ka dhigtay wasiirka ciyaaraha ayuu ka dhigtay waxaan oran karayaa isaga laftiisu waa qiimeeyo maskaxiyan buu qiimeeyo inuu wasiirka ciyaalka ka dhigo markuu maskaxdiisa arkay inuu wasiirka ciyaalka ka dhigo ayuu u doorbiday intaas waa inta wax ku fogaan maayo gacanteeduna soo galaya haddii la yiraahdo insha Allah wax kasta ay ugu sheego gacan ku dhiglahay ugu sheego nin beela isku diray hay ugu sheego ma socdo beelaanu targetkaygu waxa weeye inaan madaxa ka diro wasiirada qabqabto saraakiisha qabqabto targetkaygu waka أنا كسب قوليسون الحمد لله رب العالمين وحيالله ما تشرين يا بيرها كده وده دجاج سومالي لان قبل كسناك عاصمة دوتها أنا وده لنا هاي ولا لها نهاي قرابها نهاي نمرو بي إن كاغا كإلاشو ميلها تارجتك هادو يا عابلنا قريبا الله فرت إن بالدري هبل باوتي قولوا أها وارنسي waxaasoo dhami inta ay iman doonaan ka cishada anigu ceelif weyn baa magaalada ceelif weyn annaga ah deegaankayga weey kamana doonayo iyada iyo ceergaababa operation-ka nin walba ilaashaynankaaga haddaad oran doonto qori baa la furtay inan baa la dilay waxbaa la qaatay nin walba iminka ka cisho ka qaado ka kaxayso dayn maayo wallaahi waa weeraraya billahi waa weeraraya anigoo aan beel weegin ciidamada ku sugan halka ee daba dhilifka ee xaqqa diidan ee xaqdarrada u dagaalamaya weeraraya sidaan u weeraran aniga aqaan dhaliishiinu waxa weeye 300 kilomitir baan ka soo dhaqaaqay xabadda lagu warhelay waana qala shaqadooda wallaahi waxaan ka bilaabayaa gudahan ka bilaabaya ama samada kaga soo dago ama xeebta kaga imaado qolada warsageli nimayow anigu baan weerarin meesha carmaale la yiraaho ceel buhmaan weerarin baran maan weerarin yubamaan weerarin boqortooyada waxaan leeyahay waa inamadiina dulman ee baabuurka ay biyaha ku dhaansadaan loo diiday ee lagu aamin waaye bood la siin waaye ee sarkaalku aanu gaariga lahayn ee maxaa 500 laana ka eeganaysan 500 laana waa la helaa xamaalka laga helaa maxaa ka eeganaysan saraakiishii dhulkiiba waxba laga qaban waaye saraakiishii baa dayacan maxaa ka ururaysan ciidamada innaga wax wada leh annaga dollar siin doona hadii Allah ya hadaynu najaxno ka ilaashada inamadiina waan ka wada hadli doonaa waxaan gacanta ku hayaan markaan dib ugu noqdo deegaanka xudun diyaar ha noqdo degmada xudun diyaar ha noqoto taleex waa joogan jabadu hadiyaar garoobaan ninkii Caynabu maanta jooga ka daro dib noqol dal weeye wasiirkii yaraa berigi dhawto afka ila dhacayeen oo maanta wax oran maayo bila camal lixda gobol iyo degmada Gabileba heegan buu xal galo ragga jooga saraakiisha joogta ciidamada xukuuma hadiyaar garoobaan waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland siilaayo ninkii la oran jiray muuse wuxuu u dhiibay iyadoo dalku sira haysto maanta reer Soomaaliland bal xun su'aalaya la saanad xagaa ku ogtiin baran xagaa ku ogtiin ergaaba xagaa ku ogtiin
saddexdaa gobolba khadka way ka baxeen burcaya hargeysa hadhaw beesha caalamka baaqaan u diraya waxa weeye lacagta ama dhaqaalaha aad soo bixisaan ee Soomaaliland soo siisaan waxa maamulka yar ama kooxda yar ee duleysane ay ku geysataa xasuuqyo sida kii kalshaale sida xasuuq ceel gardaale sida ciyaal arday oo aan qaan gaadhin oo xabad nool la dhaco qaramada midoobay iyo beesha caalamka ama deeq bixiyaasha waxaan leeyahay dhaqaalihiina hadaa ugu tala gasheen in dadkan lagu xasuuqo ama lagu burburiyo wada hadii kalena ka joojiya